taliyaha guud ee ciidamada booliska Soomaaliland Saraakiil guuto Maxamed Aadan Saqadhi ayaa ka hadlay munaasabadda 18 May oo la ku beegan maalinta bariya sanad guurada 9aad ee ka soo wareegtay xuska qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Taliyaha guud ee ciidanka booliska Soomaaliland waxa uu fariin u diray ciidamada booliska Soomaaliland meel kasta oo ay joogaan isagoo ku bogaadiyay munaasabadda sanad guurada 9aad ee aas-aaska qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Geesta kale waxa uu ku amray in ciidamadu heegan ku jiraan buuxa isla markaana sidii caadada ahayd ay u sugaan amniga iyo xasiloonida dalka iyada oo munaasabadan lagu xusi doono guryaha qof kastaana calankiisa uu kaga dabaaldegi doono gurigiisa. ciidanka booliska waxaan ku hambalyeeynaa maalinta qarannimadeena dumarkooda caruurtooda saraakiisha sare saraakiisha hoose saraakiil xigeenka alifleyda iyo dableyda iyo sareeyayaasha jananada iyo xaasaskooda iyo caruurtooda waxaan ugu hambalyeeynaa maalinta qarannimadeena waxaan leeyahay waa maalin aynu farxad weyn gelayno ku farxa bash iyo barwaaqo ilaahay haynugu maaragtay haynugu la kulmiyo maalinteedana ilaahay idankii waxaynu ku gaari doonaa farxadeeda on the other hand dhinaca kale ciidanka booliska waxaan farayaa ciidamada sidoodaba maalmaha farxadda ayaynu inagu heegan gala oo shaqooyinka ugu adag aynu qabana maadaama 18 May aynaan public isu soo baxayn oo aanu dadweynaha soo baxayn oo inaan ciidamada suuqa marinayn oo in yaro hordhacana oo dadka inagoo maaragtay dadka ka farxinayna oo wax yar ka ana shalayta aynu 16 ku qabanay darar weyne oo qof waliba gurigiisa xusku samaynayo laakiin farxadii kale iyo calamadii iyo wixii meel walba laga taagi doono ciidanka booliska waxaan farayaa inay diyaar garoobaan ayaamaha maaragtay ayaantan qarannimadeena 18 May ay shaqo adag u diyaar garoobaan heegan galaan cadow inay iswajahaan waa inay u diyaar garoobaan maalinta. geesta kale taliyaha guud ee ciidamada booliska Soomaaliland Maxamed Aadan Saqadhi dabagale waxa uu xusay in xanuunka coronavirus oo ah xanuun dunida aafeeyay laga foojignaado isagoo oo si gaar ah fariin ugu diray bacadlayaasha suuqa waaheen iyo gobonimo. waxa kaloon ku adkaynaya ciidanka booliska waxa jira xanuun coronavirus oo maaragtay dunida oo dhan ka qaylisiyay oo dalkeenana imika ku soo batay oo ku badanaya waxaan ku adkaynaya ciidanka booliska oo aan farayaa dhulka karantiig dhakhtarka weyn oo kale in ciidanka boolisku si foojigan iyo taxadir leh inay shaqooyinka noocaas karantiinka u ilaaliyaan oo u qabtaan. midda kale waa inaynu adkaynaa oo aynu ilaalinaa amarkii gudida sare soo saartay ee ahaa basaska intii loo xadiday waa inaynu ku ilaalinaa tagaasida intii loo xadiday waa inaynu ku ilaalinaa garoomada iyo meelaha la isugu imanaya kale lama furi karo kuwa guryaha dhexdooda ee ganacsiga iyo kuwa maaragtay public ee laga ciyaaraba lama furi karo. dadka bacadlayaasha waxaan ku adkaynayaa heshiis baa la galay dadka bacadlayaasha waxaan ku adkaynayaa ee bacadlayaasha xiibinaya dadka xiibinaya ama inamadahadan ama awniristaadan waa inay afkiina xidhan yihiin gacmahana xidhan yihiin ninka meeshiisa laga waayo ciidan wardoona oo xuuraan u badan baanu suuqa gelin waanu ganaaxaynaa waa la qabanayaa lama ogola waayo dadkii muqaatiinaya